Assalaamu calaykum. Kigali, caasimadda waddanka Rwanda, magaalada ugu nadiifsan uguna quruxda badan Afrika. Dhab ahaantii waa Singabuurta Afrika. Ku soo dhowaada muuqaal kaloo xiiso leh, waadna ku mahadsantiin daawashadiina. Kigali, caasimadda Rwanda, waa magaalo Afrikaan ah oo tusaale u ah magaalooyinka kale ee Afrika, ayna ugu horayso caasimaddeena Muqdisho. Waa magaalo runtii qurux badan. Iskama imaanin in Kigali ay noqoto magaalada ugu nadiifsan uguna cagaaran Afrika. Laakiin waxaa lagu bixiyey qiimo xoog leh. Waxaan ula jeedaa in lagu bixiyey dadaal, dhaqaale iyo wakhti badan. Dib u habeyn iyo qorsheyn badan ayaa loo sameeyey si magaaladu ay u gaarto heerka ay maanta joogto. Ka hor intaanan gudaha u gelin sida ay magaaladu u noqotay Singabuurta Afrika, aynu si dhaqso leh u eegno asalka magaalada Kigali. Magaalada Kigali waxaa la aasaasay sanadkii 1907, waxaana aasaasay maamulihii iyo saamiyihii Jarmarka Richard Kanad. Shirkii ka dhacay Berlin 1884, Rwanda iyo Burundi oo daris ahaa ayaa gacanta loo geliyey Jarmalka. Tan iyo markii ay Rwanda qaadatay xorriyaddeeda sanadkii 1962, Kigali waxay ahayd xarunta dowladda, dhaqaalaha, dhaqanka iyo gaadiidka ee waddanka Rwanda. Intii lagu guda jiray xasuuqii Rwanda 1994, horumarkii yaraa ee kaabayaasha dhaqaale ayaa la joojiyey, hanti badanna waa la burburiyey. Markuu Paul Kagame la wareegay madaxtinimada Rwanda sanadkii 2000, wax walba way iska beddeleen Kigali. Sidee Kigali xaqiiqdii ay u noqotay magaalada ugu nadiifsan uguna cagaaran Afrika? Markii uu Paul Kagame la wareegay madaxtinimada dalka Rwanda sanadkii 2000, wuxuu la yimid qorshe istiraatiijiyadeed iyo mid horumarineed dalka guud ahaan iyo gaar ahaan caasimadda Kigali. Sanadkii 2009, hogaamiyayaasha Kigali waxay go'aansadeen inay bilaabaan duminta xaafadaha isku raranka ah, xaafadaha saboolka ee caasimadda, gaar ahaan kuwa aan haysan tubooyin biyo iyo koronto ku filan, laguna beddelo waddooyin iyo guryo cusub oo si casri ah loo dhisay. Qoysaskii guryahoodii laga dumiyey ayaa la siiyey magdhow dhan 1,500 ilaa 2,000 oo dollar qofkiiba si loogu caawiyo in dib u dejin iyo deegaan ay u samaystaan. Tallaabadani waxay ahayd tallaabadii ugu horreysay ee loo rogay qorshe hami sare leh oo lagu nadiifinayo Kigali, midaas oo horseeday in magaaladu lagu tilmaamo mid ka mid ah magaalooyinka ugu cagaaran uguna nadiifsan Afrika. Hal tallaabo oo fudud ayaa samaysay isbeddel weyn, waana mamnuucidda bacaha. Sanadkii 2008, dowladda Rwanda waxay mamnuucday isticmaalka bacaha halka mar la isticmaalo. Arrinkani waxaa ugu wacnaa daraasad ay soo saartay wasaaradda deegaanka ee waddanka Rwanda, taasoo lagu ogaaday in bacaha balaastikadu ay khatar weyn ku yihiin wax soo saarka beeraha, ayna wasakheeyaan biyaha, kalluunkana dilaan. Sabtida ugu horreysa bil kasta, dadka reer Rwanda waxay wakhti u huraan mashaariic loogu talagalay in lagu horumariyo goobaha dadweynaha ee dalka Rwanda, iyadoo lagu dhaqmayo waajibaad khaas ah oo loo yaqaano umuganda, waxaana loola jeedaa isu imaatin si loo gaaro ujeeddo guud. Tallaabooyinka kale ee muhiimka ah waxaa ka mid ah kobcinta dhaqaalaha, abuurista dhirta, iyo sare u qaadista kaymaha si waddanka uu u noqdo mid cagaaran, casriyeynta jardiinooyinka qaranka, dalxiiska, iyo horumarinta tamarta ku shaqaysa cadceedda. Kigali, Rwanda, Singabuurta Afrika. Billaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.